kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa warar sugan 24 ku soo dhawaada wararka daafaha caalamka ugu xiisaha badan maanta oo taariikhdu ay tahay 11 bisha Afraad sanada 2020 qodobada aad maanta ku maqli doontaan wararka dunida ugu xiisaha badan oo isugu jira warar qoto dheer oo dalka Soomaaliya quseeya iyo sidoo kale warar qaar kamid ah dalalka dibadaha ayaan kugu soo gudbin doona qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Isbitaalka Digfeer oo la xiray kadib markii laga cabsi qabo faafitaanka cudurka coronavirus ee faraha baan ku haya daafaha caalamka qodobka labaad ee ku maqli doontaan waxa weeyaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ka hadlay colaadda ka taagan Wanlaweyn madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo duca iyo casuumad u diray ra'iisul wasaaraha dalka UK Mr Boris hay'adda WHO oo ka digaysa in la furo xuduudaha xayiraadda saaran taliyaha ciidamada Mareykanka ee jooga Afghanistan oo la kulmay madaxda Taliban dowladda Kenya oo xayiraad ku soo rogtay xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo dalka Kenya qodobadaasi aad ku maqli doontaan channelkan waxaad kaga boqo doontaan haddii Ilaahay raali ka noqdo wararka caalamka haddii aad ku cusub tahay ku soo dhawow subscribe si aad ula socoto wararka xiga haddii Ilaahay raali ka noqdo wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in barqanimadii maanta oo sabti ahayd albaabada loo laabay Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus oo aad looga cabsi qabo gudaha dalka Soomaaliya ilo wareedyo ku dhow Isbitaalka Digfeer ayaa inoo xaqiijiyay in ay jireen dad bukaano qaba oo maalin waliba tagi jiray isbitaalkaasi wararka ayaa sheegaya in ay furan tahay oo kaliya qaybta gargaarka degdega ee loogu talagalay dadka soo dhaawacma laakiin waxa kale oo iyaduna furan qaybta loogu talagalay haweenka in ay ku umulaan arintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalayto wasaaradda caafimaadka ee dalka Soomaaliya ay shaacisay in ay soo kordhay faafitaanka cudurkaasi oo 9 kiis oo hor leh in laga helay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya kuwaas oo 3 kamid ah ay yihiin howlwadeenada ka shaqeeya isla Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho xayiraadan ayay waxay noqon doontaa mid sii adkaata iyadoo imika ay nagu soo fool leedahay bishii barakeysneed ee Ramadaanka iyadoona aynu ognahay jawiga iyo xaaladda magaalada Muqdisho gaar ahaan in shacabka danyarta ah in nolol maalmeedkooda ay ku raadsadaan bandowganina haddii uu sii daba dheeraado waxay noqon doontaa in qoysas fara badan ay la deersaan dhibaato aad u xoogan gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in la aqbali karin shakhsiyaadka ku howlan in ay sii huriyaan dhibaatada colaad ay ka taagan degmada Wanlaweyn Mr Najax oo warbaahinta la hadlayay ayaa tilmaamay in dadka weli sii horeynaya dhibaatadani ay doonayaan in ay dhiig hor leh ay sii daadiyaan lagu qaban doono gacan bira iyadoo markaasi ay la kaashan doonaan dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu carabka ku dhiftay in Wanlaweyn ay tahay halka laga hogaamiyo howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha oo ka hadlayana waxa uu yiri Wanlaweyn waa meesha laga burburiyo cadowga al-shabaab xarumihiis laga burburiyo waxaa jooga ciidan waxaa jooga maamul waxaa jooga dawladii oo dhan ma doonayno inaan nagu mashquuliyo waxaan maano badan ku fadhiinin oo dadkeena 24 saac laamiyadan lagu dildilay ma doonayno anaga ninkii wadan waaba ku dareynaa hadda idin sheegeen hadda idin kama qarinin ogaad idin kama qarin haddaad wali ku fikiraysid dadka masaakiinta jidadka maraya inaad leysid haddii wali ay wax kaaga dhiman yihiin dhiig kale inaad sii daadiso ilaahay ballankiisa waaye dawladda isla socotaa ku qabanayso sidoo kale dhacdadani waxaa ka hadlay ex madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh oo hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa ayaan go'aansan walaalayaal colaadda xigmadihii faraha badnaayo wiilaa ku dhintay wiil kuma dhashay iyo wixii ka badnaa laga dhigi jiray oo dhan ku celcelin maayo walaalayaal wax maslaxado ku jira mal colaadda sabab la fahmi kara ma duruufo gaar ah dalkan ku sugan yahay عدوان هايستو أنو كلا تورين عذر هذا يملي أو كسر درسومه أيضا إنتاسو كم نجرت هذا إن ليس دينه ليس بركعيو تولوي لجوا حالا للدنيا ميت لجوا حمان لجا شقين ولا لي روحكو إيماني مرح عذر هذا جري اللي بعد جرت على عابد يلا كعبسي يلا يدعيسي يا قرآن أقرسي إنه جبهين نيك إن دادنا إنه جبان هل الجوجي حبده ديك دادنا هل الجوجي تجمدوا Wanlaweyn waxa ka dhacay tiisoor waxa ka dhacay
kismaayo duleedkeeda waxa ka dhacayo meesha la yiraahdo beled xaawo waxa ka dhacayo meesha la yiraahdo cadale baadiyeeda waxa ka dhacayo deegaankaas galgaduud iyo maxaan ku yiraahdaa cadaado iyo dhulka waxa ka dhacayo baadiyeeda iyo dhulka fog walaalayaal waxaasoo dhan waa ifafaalo aan fiicnayn wax qurux badan maaha dadka Soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhaqanka deegaanadaas jooga waxaan ugu baaqayaa oraadaha la joojiyo xaaladda ka taagan Wanlaweyn ayaa waxay tahay mid dadka Soomaaliyeed aad ay ugu argagaxeen kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay dad iyagu meeyda la gubayo iyo sidoo kale dad iyagu la dilay oo tooreeyo la geliyay kadibna madaxa inta laga jaray qoorta xabadka loo saaray taasoo ka dhalatay in ay soo fargeliyaan siyaasiyiinta gudaha dalka Soomaaliya arinkaasi oo ah mid aan wanaagsanayn diin ahaan iyo dhaqan ahaanba xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana socda wada hadallo nabadeed ee looga hortagayo arrimahaasi ka soo cusboonaanaya degmada Wanlaweyn madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa warqad qoraal ah waxa uu u diray ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ee ku xanuunsanaya magaalada London isaga oo la ildaran xanuunka caabuqa coronavirus waxaana Ilaahay ugu bariyay Mr Erdogan in uu cudurkaasi ka dulqaado ninka lagu magacaabo Boris ee ah ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska qoraal ka soo baxay xafiiska Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa uu u taxsiyeeyay qoysaska reer British ee dadkoodu ehelada ahaa ee ku geeriyooday iyo dadka iminka la xanuunsanaya COVID-19 waxa uu hadalkiisa sii raaciyay in dawladda UK in ay tahay dawlad aad u xoogan sidoo kalena isaga babacdhigi doonaan cudurkan ku faafay dalkaasi Britain Erdogan ayaa qoraalka casuumaad ah ee u diray Mr Johnson waxa kamid ahaa in uu ku casuumay inuu soo booqdo dhulalkii awooyaashii isaga oo doonaya talaabooyinka in uu sii xoojiyo labada dal iyo iskaashiga ee laba geesoodka ah muddada ka bixitaankii Brexit ra'iisul wasaare Boris ayaa waxa uu kamid yahay madaxda caalamka ee sida weyn u saameeyay cudurkani waxa uuna maalmihii la soo dhaafay ku jiray isbitaal ku yaala caasimadda dalkaasi ee magaalada London xaaladiisa ayaa ah imika mid ay ka soo wanaagsanaanayso sida ay xaqiijiyeen dhaqaatiirta la tacaalaya xanuunkiisa madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ninka lagu magacaabo Tedros ayaa sheegay in aynan wanaagsanaynin in dib loo furo xuduudaha hadalkii ka soo yeerana WHO la qafiifsado maadaama uu yaray in cudurkani safmarka ah marba marka ka sii dambaysa inuu aad u sii faafayo Dr Tedros waxa uu sheegay in ay weli aanan la helin daawada dhaxalgalka ah ee cudurkani looga hortagi karo taasina ay wanaagsan tahay in xuduudaha xayiraadeeda la sii adkeeyo oo la yareeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka wadamada isaga kala gooshaya xalka kaliya ee imika la hayo ayaa ah buu yiri in la xadido socdaalka bulshada caalamka haddii aan la xadidina waxa sii badan doonta xanuunka sidoo kalena faa'iidada laga helayo waa yaraa doonta dawladaha dalalka Talyaaniga iyo Spain oo ah dalalka uu sida baani uu u saameeyay cudurkani hadda se dadka uu ku soo dhacayo uu soo ridanayo ayaa aad u sii yaraanaya waxayna wadaan qorsho ah shaqaalaha warshadaha iyo sidoo kale dhismooyinka in ay u ogolaan in shaqooyinkoodii ay dib ugu laabtaan wixii ka dambeeya maalinta Isniinta ee fooda inagu soo haysa dadka uu xanuunkani qaba adduunka oo dhan waxa ay gaareen 1.7 milyan oo ruux halka inta u dhimatana ay kor u sii dhaafayso 100,000 oo qofood taliyaha ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa magaalada Dooxa kula kulmay hoggaanka ururka Taliban si loogu wada xaajoodo baahida loo qabo in la yareeyo rabshadaha dalkaasi ka sii cusboonaanaya sida ay sheegeen afhayeen u hadlay Mareykanka iyo Taliban maanta oo Sabtiya kulankan dhaxmaray hogaamiyaasha Taliban iyo General Scott oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayaa la qabtay habeenkii xalayta ahaa waxa uuna yimid xilli ay kooxda iska caabintu adkeeyeen Mareykanka in uu ku xadgudbayo heshiiskii ay wada saxiixdeen bishii Febraayo ee sanadkan heshiiska ay Mareykanka iyo Taliban kala saxiixdeen oo sheegaya in ciidamada caalamiga ah ay si tartiib ay uga baxaan dalka Afghanistan taa oo ay bedelkeedu ay tahay in Taliban ay damaanad qaado nabad waarta
waana fursaddii ugu wanaagsaneed ee lagu dhammayn karo colaadaha muddada 18 sano ah ee ka socda gudaha dalka Afghanistan. faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaya xayiraad dhinaca socdaalka ah oo ay sameeyeen dadweynaha iyo gaadiidka oo looga dhawaaqay qaybo ka mid ah gobolada waqooyi bari ee dalka Kenya si loo yareeyo faafitaanka cudurkaasi. taliyaha booliska ee gobolkaasi General Nicodomo oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku shaaciyay xayiraadda lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa dadweynaha iyo gaadiidka. sidoo kale taliyaha ayaa tilmaamay in xayiraadaasi ay ku dhaqangeli doonto deegaanada ka dhaca dalalka Kenya iyo xududka u dhaxeeya dalka Soomaaliya, taasoo ay ka dambeyso cadaadiska faraha ba'an ee uu ku hayo caabuqa coronavirus ee dalka Kenya laga cabsi qabo inuu aad ugu sii faafo. si kastaba ha ahaatee degmada Mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya oo dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay laga helay cudurkan dilaaga ah kadib markii baaritaan lagu sameeyay 2 ruux oo walaalo ahaa oo laga helay cudurkaasi. warkayaga ee maanta inta ayaan ku soo koobaya wararka dambe intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.